munaasabada 8 Maarso ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana munaasabada ka soo qayb galay guddoonka baarlamaanka Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar waxgarad ururada haweenka qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle ugu horeyn waxa munaasabada ka hadla waxgarad iyo wasiirada haweenka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin kale maanta waa maalin qiimo leh waa 8 Maarso waa maalin qiimo ugu fadhido ururweynaha haweenka adduunka waa maalin ay garan karaan dadkii joogay oo maalintan asteeyay oo laga joogo 107 sano ayaa waa maalin xusid mudan waan xuseynaa waan u fadhinaa maanta xafladda sharafta badan ay u jeedaan waa maalin qiimo weyn waa maalin hooyada ay ku leedahay bilaha 12 bilood bisha ay ku leeyihiin hooyadu maxay halkaan waxaan isugu yimiday gobol iyo degmo haweenkoodii waxay isla garteen maadaama ay tahay maalin munaasabadeedu qaali tahay gobolka iyo degmadana ay ka jiraan iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan abaaro inaan soo gaabino oo fantasiyo waaweyn aanan dhigin horta maanta waa maalin qaali ah waa maalin haweenaynaha adduunka qiimo ugu fadhiso waxaan ku sheegaa waxa hadana aan ku sii faraxsanahay maarsadeedii kale maamul goboleedaan raadinayo marka maanta maamulka Hirshabelle waxaan ku sheegaa gudoomiyaashiisa baarlamaanada xildhibaanada wasiirada maadaama ay nala joogaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan maanta aan farxad iyo baroor diiq iskugu jirta aan meeshan u fadhinaa oo aan haweenka adduunka dabaaldega ay sameynayaan annagana ay noola jirto dhibaato iyo abaaro baroor diiqdeeda astaantii 8 Maarsana ka wada tagi weynay hadda waxaad arkaysaa nin Soomaaliyeed oo muslim ah intuu soo baxo guri hooyo iyo waayeel iyo habar aan wiil iyo gabar lahayn ama ilmo saqiira u dhax fadhiyaan waxa damiirkiisu siiyay inuu dab ku qabto ugu dambeyn ayaa munaasabada waxa ka hadashay Canab Axmed Ciise gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabelle oo sheegtay in la gargaaro haweenka iyo caruur tuulooyinkii ay ku noolaayeen habeen ka hor al-shabaab ay dab qabadsiiyeen waxaan leeyahay gabdhaha reer Hirshabelle hambaliyo waa maalin weyn oo gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha adduunku ay leeyihiin waa hambaliyo ay ku dhex jirto aan iskaalmayn reer Hirshabelle waxa uu dheeraada in guryihiin la gubay maata baahan oo biyo haysan oo macluushan inay beedkay ku hoyn lahayn dab looga qabtay waa wax la yaab leh ilaahaygi subxaanahu wa ta'ala han baryaynaa inuu naga dulqaado Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.